dhammaan marti sharafka halkaan iskugu yimid waxaan idin leeyahay soo dhawaada xafladeena caawa waxay ku saabsan tahay labada xildhibaan oo noo mathalaya dawladda federaalka midna uu ka soo jeedo Ashraf Sarmaan uu yahay xildhibaanka koonfur galbeed ka yimid midna uu yahay mathalada banaadir Ashraf banaadir oo mathalaad u yahay marka waxaan leenahay wasiir iyo xildhibaan soo dhawaada haddii aad noqonaysaan nabad ku noqda ayaduna waa sagootintii way la jirtaa maxaa yeelay xafladda caawa waxay ahayd soo dhaweyn Shariif Mustafa Horay oo maanan soo dhaweynin caawa noo yimid waan soo dhaweynaynaa Shariif Saarax Horay baan u soo dhaweynay caawana waa gabagabadii safarkiisii baan soo khatimaynaa marka wasiir Mustafna asaga naftiisa bariyo joogay haddana uu noqonayaa waxaan idin leenahay xildhibaan iyo wasiir soo dhawaada haddaad noqotaan wadankii nabad ku noqda annagoo idinku soo dhaweynayna wadankiini labaad ee Kenya taas soo dhaweynta iyo sagootinta halkaasaan kaga baxayaa mid labaad Ashraf waa la yaqaanaa markii Ashraf lagu xisaabtamayo dawladda hadda siday u shaqaynayso mabaadi'da ay ku shaqaynayso waxa weeye nin walba mathalaad iyo dhul buu ka yimid waxa weeye annagoo dhan maanta caawa halkan waxaan ku joognaa Ashraf dhamaanteed laakiin labada xildhibaan ee noo jooga labada xildhibaanka iyo wasiirkaba midna waa banaadir gobolka banaadir mathalaadiisa midna gobolka koonfur galbeed buu Ashraf Sarmaan ku mathalaya marka waxa weeye soo dhawaada idinkuna sidaas u ogaada kadib markaan u galo Ashraf xaaladeeda halkay joogto iyo waxay tahay iyo markaan ka jawaabo hadalkii walaalkay Shaafici uu soo saaray uu yiri horaan Sarmaan waxay noo tiri ma aragtay hana la soo dhaweeyo ilaahay waa ku roon yahay Ashraf hamidowdo ha socoto waa lama diidano Ashraf laakiin Ashraf maanta hawlo badan baa u yaala ninkii xildhibaan u ah iyo ninkii ilaahay waa ku roon yahay oday u ah kulli waxa u yaala waajibaad adag oo ma aragtay qowmiyadooda ku saabsan Ashraf tacliinteeda hoos bay jirtaa hadday diini tahay iyo hadday maadi tahay marka odayaasha iyo ma aragtay dadka mathalahayo xildhibaanada ah waxa looga baahan yahay inay dhalinyarada dhiirigelin u sameeyaan waxbarashada lagu dadaalo ma aragtay waxbarashadii haddii la helo dhalinyaradii haddana shaqay u baahan yihiin si ma aragtay dhalinyaradii ay shaqo u hesho maadaama minority ay ka soo jeedaan waa in shaqo abuur la sameeyaa si dhalinyarada loo shaqaaleeyo meeshan waxa weeye wadanka hadda aan joogno markii laga soo qaado shaqooyinka aad bay u yar yihiin waxbarashadana aad bay u badan tahay ardaygii markuu soo ma aragtay soo aflaxo jaamacadda ka soo aflaxo ama dugsi sare ka soo baxo inuusan heli karin shaqo si dadkaas marka shaqo abuur loogu sameeyo ma aragtay ilaahay waa ku roon yahay ay xoogooda iyo tacliintooda ugu noolaadaan waa in odayaasha baac mushtarka dadka xildhibaanada oo mas'uuliyadda saaran tahay dhammaan waa in shaqo abuur la sameeyaa la dadaalaa gundiga dhiisha la iskaga dhigay tan kale Ashraf haddii waxa weeye kali socod bay baratay nin walba waa boqor yar asaga wuxuu dhahmoogi wax kale inay socdaan ma rabo marka waxaan ku boorinayaa dhammaantood in la ismaqlo la isku tanaasulo odayaasha laga dambeeyo waxgaradka laga dambeeyo xildhibaanada la soo dhaweeyo la shafro ma aragtay aan loo gefin cirdigooda iyo ma aragtay magacooda waxa weeye nin walbana marbuu mathalaya mathalaada ha lagu xishmeeyo dadka
qolo walba ninka xishmay ninka matalaadooda haysta waa inay xishmaysaa haddaad qofkaaga weynaysato markaas aad adiguna sharaf yeelanaysaa taas intaasaan oga baxayaa ashraaf meelay joogtaba dhammaanteed ha la dadaalo dhammaantiin dadaala garbaha isqabsada wada jirkiina ka adkaysta waxaan halkaan jecelahay inaan baaq oga diro walaalahay ashraaf sarmaan meelaad joogtaan ba Allah idin nabad yeelo haddaad North America joogtaan haddaad Soomaaliya joogtaan haddaad Kenya joogtaan midnimadiina ilaashada ma aragtay isku duubnaada ashraafta kalena dhammaan hal la xishmeeyo marka waxaan idin sheegayaa aniga hadda chairman baan ahay laakiin inay doorasho imaanayso kol dhow xilka aan ka degayo gudoomiye cusubna aan dooranayno anoo fursaddan caawa ka faa'iideysanaya oo ma aragtay dib u shaandhayn ku samayn doona ashraaf sarmaan maamulkii hore la bedelayo maamul cusubna loo dhisaayo marka sidaasna ka warqaba nin walba ha soo diyaar garoobo ninkii u tartami lahaa jagooyinkeeda marka anigu wax badan baan soo ahaa gudoomiye maantana waxa way waqtigii way iga dhamaaday waqtiyo badan baa la igu daray sidaas darteed gudoomiyihii diyaar oo xilkan noo qaban kara oo ma aragtay garaadkeeda iyo aqligeeda iyo waxbarashadeeda shahaadooyinkeeda haysta ha u soo diyaar garoobo wabillahi tawfiiq